haddaba si aan u gaarno guulaha iyo hadafyada aan leenahay, waxaa jiray isteebyo laga maarmaan ah ama tillaabooyin laga maarmaan ah qofka bini'aadamka inuu sameeyo si uu u gaaro hadafka ama guusha uu leeyahay. haddaba 5tan qodob ee halkan kuugu soo gudbin doono, haddii aad naftaada ku dabaqdo oo aad ficil u beddesho, waxaad gaari doontaa guul. waana la tijaabiyey oo ma ahan wax adigu aad bilaabayso. qodobka 1, wax akhriska. mar waliba oo wax akhriskaadu bato, waxaa badanaya fahamkaaga, isfurka maskaxdaada, iyo dadaaladaada aad ku hadminayso inaad meel walba gaarto. waayo akhriska waxaa la yidhaahdaa waa jimicsiga maskaxda. qodobka 2, mahadinta Alleh. mar waliba ood Alla ku mahadiso, waxaad helaysaa guul aad u weyn. haddaad baahan tahay, haddaad dhergan tahay, haddii aad xanuunsan tahay, waa inaad Ilaahay ku mahadisaa. qodobka 3, naftaada waqti sii. naftaada la qaybso waqti, jaanisii, meelaha dabaanshaadka, meelaha fiifiican dadku ku nastaan, cunto yaro macaan. haddaad awooddo, naftaada nafisi si ay naftaadu u hesho farxad, maskaxdaaduna u degto. qodobka 4, wax bixi. haba yaraatee wax bixi. wixii aad awooddo inaad qosasho, qof aad u qosasho, qof aad farxad geliso, qof aad sheeko cajiib uga sheekaysid, intaas waxay noqonaysaa wax bixi. haddaad gacanta wax ka bixisaawna iyaduna waa sidoo kale. qodobka 5, naxariis samee. u naxariiso dadka kale, xayawaanaadka. naxariis u muuji. mar waliba ood naxariis muujiso, waxaad adiguna helaysaa naxariis badan oo qalbigaaga gasho ayaad helaysaa. soomaalidu waxay tidhaahdaa ii cun baa ii cun kuu dhasha. mar waliba ood naxariisatid, adigan Ilaah baa kuu naxariisanaya. ilaahay muxuu yidhi, isu naxariista aan idin naxariistee. mar waliba ood ummadda u naxariisato, adigan Ilaahay baa kuu naxariisanaya. ummadda kalena waa kuu naxariisanayaan. haddaba walaalkay ama walaashay, naftaada ku dabaq 5tan qodob, kadibna tijaabi natiijada kaaga soo baxda. mahadsanidin.